daawadayaal soo dhawaada dowladda Iran ayaa ugu baaqday dadka rayidka inay ka fogaadaan saldhigyada ciidanka Mareykanka. Waxaan kaloo falanqeyn ku sameyn doonaa isla ciidanka dowladda Iran ayaa ka mamnuucay maraakiibta marinka Hormuz loo fasaxo in ay ka soo gudbaan in ay ku xirtaan dekedaha Mareykanka iyo Israa'iil iyo dalalka xulafada la ah. Waxaan kaloo falanqeyn ku sameyn doonaa askar ka tirsan ciidanka militariga maamulka Israa'iil ayaa lagu laayay koonfurta wadanka Lubnaan dagaal xoogan oo halka ka dhacay. iyo waxaan kaloo fiirin doonaa Pakistan iyo Shiinaha oo Iran u ballan qaaday taageero xilli dagaalkan uu sii xoogeysanayo iyo Sacuudigii oo u yeeray madaxweynaha wadanka Ukraine la kulmay yirina naga difaac kaalay diyaaradaha droonka ee Iran ay nagu soo weerarayso. qodobada kale ee barnaamijkan aynu ku soo qaadan doono waa xaaladihii ugu dambeeyay ee dalalkan bariga dhexe iyo beegsiga xarumaha muhiimka ah ee dalalkan Carabta. haddii aad nagu cusub tihiin saaxiibayaal nagu soo biira marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa dowladda wadanka Iran ciidankeeda ee xoog badan ee ilaalada kacaanka la yiraahdo ayaa digniin adag soo saaray oo u diray dhammaan dadka rayidka ah ee ku nool bariga dhexe oo waxa ay yiraahdeen Iran fadlan ka fogaada bay yiraahdeen xarumaha saldhigyada Mareykanka ee ku yaala dalalkan bariga dhexe oo aysan kala qaadin oo ay yiraahdeen annagu wixii hadda ka dambeeya si adag baanu u duqeyn doonaa xarumaha muhiimka ah ee saldhigyada Mareykanka iyo sidoo kale kuwa Israa'iil. laakiin waxa ay Iran tiri oo ciidankeeda ilaalada kacaanku ay xoojiyeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe waa inaad ka fogaataan oo haddii ay waxyeelo idinka soo gaaraan halkaasi annaga mas'uul kama ahan. Iran warkeeda way cadeysay. arrintan marka maxaa loo fasiran karaa? waxaa loo fasiran karaa in Iran ay isku diyaarinayso in haddii ay dhacdo suurtagalnimada in duulaan military oo xagga dhulka lagu soo qaado mid ka mid ah jasiiradaheeda muhiimka ah ee gaaska iyo saliidda laga doofiyo dagaal dhulka ah uu dabcan bilowdo isla markaana Iran aysan ku ekaan doonin in jasiiradaasi oo kaliya ay ka dagaalanto Iran ay aadi doonto dabcan saldhigyada Mareykanka ee dalalka bariga dhexe ku yaala. marka ciidankan IRGC la yiraahdo waxay leeyihiin waa in degdeg looga fogaadaa dhammaan saldhigyada Mareykanka ee ku yaala bariga dhexe taas oo Iran ay leedahay. markan sidii hore si ka duwan ayaan u beegsanaynaa. Iran hadda koor waxay tiri xarumaha gaaska iyo saliidda lagu sifeeyay ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta laga fogaado arrintiina way dhacday markii laga fogaadayna si adag bay Iran u duqeysay. haddaba dhinaca kale isla ciidankan ayaa uga digay maraakiibta ay u ogolaadeen inay marinka Hormuz ka gudbaan oo dalalka xiriirka la wadaaga ee Iran ah waxay yiraahdeen haddii aanu idin fasaxnay marinkan Hormuz inaad ka gudubtaan haddii aad ku xirataan dekedaha Israa'iil iyo Mareykanka ama dalalka xulafada la ah waxaad ogaataan dib dambe meeshan uma soo maraysaan. Iran warkeedii way cadeysay oo Iran waxay hadda ka shakisay in qaar ka mid ah maraakiibtii ay fasaxday ee halkan ka gudbay inay Israa'iil iyo Mareykanka dekedahooda ay ku xirteen oo si dhuumaalaysi ah shidaal iyo gaas ay dalalkaas u geeyeen. Iran marka waxay tiri cadowga haddii aad ku dhawaataan meelaha ay joogaan mar kale halkan ma soo maraysaan. dalal dhowr ah ayaa ilaa hadda halkan ka gudbay waxaa ka mid ah Turkiga waxaa ka mid ah wadankan la yiraahdo India dalal baa ka mid ah adigu halkan ka gudbay. shalay oo kaliya laba markab baa halkan ka gudbay marinkan Hormuz. marka Iran digniinteeda way u sii dirtay waxay tiri haddii aad meeshan ka gudubteen oo aan fasax idin siiyay haddii aad ku leexataan dekedaha Mareykanka iyo Israa'iil ama wadamo labadaasi wadan xiriir la leh ogaada dib dambe halkan uma soo maraysaan. warkoodii way cadeeyeen. marka Iran miyaa saxan haddii dabcan dalalkan ay Israa'iil Mareykanka ay tagaan ama ay ku xirtaan dekedo xiriir la wadaaga mise dalalkaasi ayaa qaldan? haddii la burburiyo maraakiibtan yaa qaladka iskale Iran miyay haddaba digniin sii dirtay mise digniinteeda waa iska indha tiri doonaan? aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag. sidoo kale Iran inay uga digtay dadka rayidka ah inay ka fogaadaan saldhigyada Mareykanka ee bariga dhexe ku yaala arrintaas sidee bay kula muuqataa? Iran awoodeeda xagga fahamka sirdoonka iyo dagaalkan miyuu hadda wax iska bedelay? sidoo kale qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag. saaxiibayaal maanta diyaarado daroon ah iyo sidoo kale madaafiic ayaa lagu weeraray kaabayaasha wadamada Gulf ama gacanka Kuwait. haddaad fiiriso
dekada weyn ee ganacsiga ee Shuwayqa Port liiraahdo ayaa la burburiyay oo diyaarado lagu weeraray. Kuwait horta waa meesha u daran ee dagaalkan markii uu bilowday ilaa maanta si weyn loo garaacayo sababtoo ah Mareykanka xitaa meesha ugu badan ee khasaaraha uu ka soo gaaray waa Kuwait. Kuwait waxaa jooga sirdoon xoogan oo Iran ay leedahay. Iran hore ayay ugu sii talagashay in dagaalkan haddii uu qarxo Kuwait ay noqon doonto meesha Mareykanka uu ku dhiig bixi doono, arrintaana way samaysay. Marka dekadii weyneed ee commercialka ahayd ee Shuwayqa Port liiraahdo oo Kuwait ku taala maanta xilfaha ayaa loo laabay oo waa la bartilmaameedsaday madaafiic iyo diyaarado ayaa ku hoobtay khasaare weyn waa uu jira. waxa la leeyahay dhaawacyo xoogan baa jira, burburna waa uu jira. xaaladii halkaasna aad bay saaxiibayaal ay u daran tahay. dhinaca kale Kuwait oo kaliya ma ahan, maanta militariga maamulka Israa'iil ayaa cashar loogu dhigay koonfurta wadanka Lubnaan dagaal ay la galeen xisbiga reer Lubnaan. Israa'iil waxay qiranaysaa hal askari inuu ka dhaawacmay, laakiin waxa la leeyahay 5 ilaa 6 askari ayaa halkaasi ay ka soo qaadeen. inay dhinteen iyo inay dhaawac yihiin lama kala yaqaano, laakiin waxa la leeyahay askartaasi dabcan jab xoogan ayaa halkaa ka soo gaaray. xaaladdu way ku xun tahay. wixii hadda ka dambeeyana askartaasi iyo kuwa kale way ku adkaan doontaa halkaasi inay kasii dagaalamaan. bal dhinaca kale aynu eegno taliyaha ciidanka militariga maamulka Israa'iil oo la hadlayay golaha wasiirada ee maamulkiisa oo cod laga duubay isagoo leh askarteeni way daaleen, askarteeni tiradooda way dhamaanaysaa, qalabkeeni wuu naga dhamaanayaa, wax walbaba waa gabaabsi. haddii dagaalkan uu sii dheeraadana dabcan cid naga celinaysa Iran ma jirto oo Iran wayna burbursan doontaa. bal qodobkaasina aynu eegno. wada hadal dhexmaray taliyaha ciidanka militariga ee maamulka Israa'iil General Ayla Zamir iyo golaha wasiirada ee maamulka Israa'iil ayaa banaanka la keenay, waxaana taliyaha uu u sheegayay golaha wasiirada ee maamulka Israa'iil in ciidanka militariga ee maamulkaasi ay daaleen isla markaana askarta ay sii yaraanayso tir ahaan maadaama dagaalkan hadda ay kula jiraan wadanka Iran uu daba dheeraaday isla markaana bil uu ku sii dhow yahay. taliyaha ayaa niyad jabkaasi la wadaagayay golaha wasiirada oo waxa uu lahaa haddii dagaalkan aan la joojinin ama xal kale la helin askartu way daali doontaa, isla markaana askartu tiradoodu way sii yaraan doontaa maadaama askar fara badan ay ka dhaawacmeen kuwana looga dilay dagaalkan. isla markaana waxa uu leeyahay haddii taasay dhacdana askartii Israa'iil way dumi doonaan, arrintaasi oo horseedi doonta in Iran ay qabsato gudaha Israa'iil isla markaana kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan iyaguna ay awoodi doonaan in koonfurta wadanka Lubnaan ay ka soo saaraan ciidanka militariga ee maamulka Israa'iil kadibna ay u soo gudbaan waqooyiga Israa'iil oo deegaano ay qabsan karaan. Ayla Zamir codkan laga duubay ayaa waxa uu dabcan uu ku soo bandhigay 10 caqabadood oo hadda ciidanka militariga ee maamulka Israa'iil haysta, isagoo ku booriyay golaha wasiirada in tallaabo degdeg ah la qaado. isla markaana waxa uu leeyahay nidaamkeeni difaaca hawada waa uu sii dhamaanaya oo waa gabaabsi, hadda ma awoodno inaanu difaacno magaalooyinkeena muhiimka ah. sidoo kale waxa uu codka ku yiri askarteenu aad bay niyad ahaan u daaleen, sidoo kalena jir ahaan way daaleen. askarta way naga sii yaraanayaan, qaarkood inay dagaalka yimaadaan way diidan yihiin, kuwana way ku adag tahay in ay sii dagaalamaan. waxaa kaloo uu sheegay ninkan taliya Zamir liiraahdo in caqabadahaasi oo dhan ay jiraan. dabcan codkan laga duubay kulankan wasiirada iyo sidoo kale taliyaha dhexmaray ee warbaahintan ama jaraa'idkan liiraahdo N12 uu sii daayay ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay in cawaaqib xoogan Israa'iil hadda ay dagaalkan bariga dhexe ay kala kulmayso. Zamir ama taliyahan militariga ayaa dabcan wuxuu ahaa ninkii 2 sano iyo bar ka hor ka digay in dabcan howlgal military lagu qaado wadanka Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza markii uu dhacay weerarkii October, laakiin markii la dhageysan waayay waa tii khilaafkii isaga iyo sidoo kale wasiirka difaaca iyo Netanyahu uu ka dhex qarxay. khilaafkoodana banaanka uu soo baxay ilaa markii dambe si dabcan quus ah loo xaliyay, welina dabcan khilaafaadkooda waliba uu taagan yahay. dabcan codkan haddii aan kusoo noqono, Zamir wuxuu u sheegay wasiirada sidoo kale in waxa loo yaqaano nidaamka kaydka ama haddii ahaan lahayd hubka Israa'iil kaydkooda u yaala, nidaamkooda difaaca hawada kaydka ku jira, shidaalkooda, askartii kaydka ku jiray, intuba waxa uu leeyahay way sii yaraanayaan oo tiradooda iyo awoodooda uu sii daciifaya. wuxuu leeyahay xaalada degdeg ah ayaa la geli doonaa haddii dagaalkan uu muddo kale sii socdo. wuxuu leeyahay waxaan u baahannahay inaan degdeg tallaabo u qaadno
arrintan sida laga yeeli karo dabcan aan fiirino sida kaliya ay dabcan ku badbaadi karaan Israa'iil ciidankooduna uusan ku burburi karin waa in ay isdhiibaan dagaalkana ay joojiyaan laakiin Iran waxay leedahay annaga dagaalka nagu soo qaaday madaxdeennii baa la dilay annaga go'aanka iskale haddii dagaalkan aan joojinayno iyo haddii uu sii soconayo taasoo macnaheedu uu yahay wax faraha Israa'iil ku jira ma jiro askarteediina way sii dhamaanayaan way sii daalayaan nidaamkooda difaaca hawada wuu sii dhamaanayaa wax ay qaban karaan ma jirto oo go'aanka Iran gacanteeda ayuu ku jiraa dabcan Iran waxa laga weeraray labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalooyin muhiim ah oo ay kamid tahay magaalada ay ku yaalaan warshadaha sifaynta saliidda iyo magaalada kale ee weyn ee hubka nuclearka u yaalo saynisyahanadooda iyo sidoo kale ay yaalaan shaybaaradooda hubka nuclearka marka magaaladaasi labada magaalo markii la isku daro dad 500 gaaraya ayaa ku dhaawacmay geeridu wali Israa'iil maysan sheegin laakiin waxa la leeyahay geeri xooggan baa jirta haddii dad kontumeeye ah la laayahay inay dhinteen iyo in ay nool yihiin taas marka waxay xaqiijinaysaa qasaaro xooggan oo dhimashay dhaawac inuu jiro saaxiib yaal odaygii Trump ahaa isagana laftarkiisa wuxuu ku dhow yahay inuu isdhiibo sababtoo ah waxa maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada laga arkayay askar Mareykan ah oo dhahaya anagu Iran ma aadayno dabcan waxa jira 15 qodob oo ninka oday Trump yiraahdo oo u soo bandhigay Iran oo waxa uu leeyahay haddii Iran ay doonayso wada hadal waa in shuruudahaas ay aqbashaa shuruudii waxa loo soo mariyay wadamada Pakistan ama Masar midkood Iran baa loo keenay shuruudaha waxa ugu waaweynaa in Iran ay hubka nuclearka ay baabi'iso waxa ay hadda haysatana ay ku wareejiso Mareykanka iyo hay'adaha kale in marinka Hormuz dabcan askar isku dhaf caalami ah la keeno waxyaalahaas baa ku jiray Iran warqadii way jeexjeexday wayna gubtay waxayna tiri annagana 5 shuruud baan wadanaa waxaan ugu weyn in waxa bajoojin la yiraahdo aanu jirin oo uu jiri doono dagaalka gebi ahaanba in la joojiyo la damaan qaado in Iran aanu dib dambe loo soo weerari doonin qodobka labaadna wuxuu ahaa in si dagaalkaasi gebi ahaan loo joojiyo in Mareykanka saldhigyadiisa uu kala baxo dalalka qaliijka ee bariga dhexe ee Iran xuduudaha la wadaaga Iran marka waxay leedahay gobolkan bariga dhexe hal saldhig oo Mareykanka uu leeyahay ma joogayo mana ku yaalayo taasna waa shuruudeena waxa kale oo Iran ay dalbatay 100 bilyan oo dollar oo magdhow ahaan loo siinayo maadaama burbur xoogan wadankeeda uu soo gaaray shuruudaha shan bay ahaayeen inta ayaa ugu waaweynaa marka waxay u muuqataa in Iran meel adag ay taagan tahay Israa'iil Mareykankana meel adag uu taagan yahay taasoo marka muujinaysa Israa'iil inaysan hadda wax hal ahaynin askarteediina niyad ahaan jir ahaan taya ahaan qalab ahaan wixiiba ay u daalan yihiin isla markaana dagaalkan haddii uu sii socdo ay caqabad weyn ay ku kulmayso marka ayadoo xalka inta uu marayo Mareykanka uu isku diyaarinayo inuu duulaan military uu ku qaado wadanka Iran saaxiib yaal dawladda wadanka Iran ayaa diyaarisay 1 milyan oo askar military ah iyo dagaalyahano si ay ula dagaalamaan Mareykanka haddii uu weerar dhulka ah uu ku soo qaado wadanka Iran Mareykanka waxa uu soo diray askar 2,000 gaaraysa oo kuwa diyaaradaha ku booda ah waxa loo soo diray bariga dhexe waxa la doonayaa jasiirad Iran ay leedahay oo shidaalka iyo gaaska laga dhoofiyo Trump inuu qabsado jasiiradaas Iran marka waxay leedahay 2,000 haddii aad soo wado annaguna 1 milyan oo askar military iyo dagaalyahano ayay Iran diyaarisay si ay uga hortagaan ciidankaasi dabcan warbaahinta dalalka qaliijka ayaa warinaya madaxda wadanka Iran inay sheegeen haddii Mareykanka arinta uu ku talaabsado intaas macnaheedu uu yahay in Iran 1 milyan oo askari oo ay diyaarisay in ay ka hortagi doonaan marka 2,000 oo askari oo jasiirad loo soo diray ayaa Iran waxay uga hortagaysaa 1 milyan oo askar military ah iyo sidoo kale dagaalyahano gobolkan jooga oo Iran gudaheeda lagu abaabulay dabcan Iran sidoo kale qalab iyo sidoo kale difaac iyo askar dheeraada ayay u dirtay jasiiradan ay leedahay ee muhiimka ah Brigadier General Ali Jahan Shahinin yiraahdo oo ka tirsan taliyaha ama ah taliyaha ciidanka dhulka ee dawladda wadanka Iran ayaa waxa uu sheegay haddii dagaal dhulka ah Mareykanka uu isku dayo waa qatar Mareykanka iyo Israa'iil gaari kara Trumpna dabcan wuxuu isku diyaarinayaa in marinkan Hormuz uu yiraahdo xoog baan ku furayaa oo ciidamadaasi uu soo diro laakiin Iran halkaasi milyan bay diyaarisay Iran halka milyan xagee bay ka keentay dabcan Iran halkan milyan askari waxay diyaarisay baa la yiri bilihii u dambeeyay gaar ahaan inta wada hadaladu ay bilaaban halkan milyan waxa ay intooda badan ay yihiin askarta militariga dawladda wadanka Iran iyo dagaalyahano kale
dabcan gobolkan hadday ahaan lahayd ciraaq iyo suuriya iyo lubnaan iyo yemen iyo baxrayn iyo kuwait meelahaas ayaa laga kalkeenay askartan dabcan maalmihii bilihii u dambeeyeyna waxay sameynayeen tababaro kala duwan oo iiraan ay la qaadanayaan waxaabaa loo diyaarinaya marka iiraan way ogeed in xaaladan oo kale ay geli doonto oo dagaal dhulka ah suuragal uu noqon doono marka halkii milyan ee askari ayay iiraan hadda waxay leedahay waa diyaar maraykanka bariga dhexe intee askari baa ka jooga 50,000 oo askari ayaa gobolkan bariga dhexe maraykanka ka jooga intooda badanna 40,000 oo kamid ah 50kaasi askarina tan iyo dagaalkan markii uu bilowday waxaa laga saaray saldhigyada qaarkood Yurub baa la geeyay qaarkoodna hoteelo caadi ah ayaa la dejiyay marka Iiraan jasiiradan ay leedahay ee Qark Island yiraahdo maxay tahay waa jasiirad weyn oo loo yaqaano oil industry taasoo dabcan ay yaalaan baa la yiri hypothetical ground baa lagu tilmaamay arintaasoo dabcan maraykanka haddii uu ku dhaqaaqo Iiraanna halkaasi milyan askari ay dhaqaajin doonto dagaalkana ay gelin doonto marka walwal weyn baa hadda wuxuu soo koray Trump wuxuu leeyahay meeshii aan u soconay ee aanu doonaynay ciidamada diyaaradaha ka booda ee commandoska ah ee 2,000 askari ah inaan gelino 1 milyan oo askar iyo dagaalyahano ayaa nooga horeeya taasoo macnaheedu uu yahay Iiraan waxay leedahay dalkaygan joogaa askarteenu waa diyaar heegan baanu ku jirnaa dhulkaanu kala garanaynaa bal haddii diyaarad in lagu boodo ay dabcan keeni karto guul aanu aragno marka waxay leedahay Iiraan horta jasiiradan waxay leedahay jasiirad horta biyo ay ku wareegsan yihiin waaye badda dhexdeeda ku taala dhul dabcan ku hareeraysan ma jiro in hawada looga soo daato oo kaliya ayaa ciidan ay ku soo degi karaan Iiraanna marka wax walba way samaysayba askarigii diyaarad ka soo booda intuusan dhulka imaanin ayaanu macsalaameynayna ay leedahay marka arinta darteed xaaladu meel adag bay maraysaa marka maraakiibtii maraykankana dhaqdhaqaaq bay ka wadaan bariga dhexe gaar ahaan jasiiradan iyo meel u dhow Iiraan marka waxay leedahay hal wadan oo carbeed ayaa qorshahaasi jasiiradan lagula wareegayo Trump iyo kooxdiisa kala shaqeynaya ma aysan sheegin laakiin waxay u badan tahay laba wadan midkood ama waa Imaaraadka Carabta ama waa Kuwait labadaas wadan baa wax la leeyahay waa midda Iiraan ay leedahay Israa'iil bay Maraykanka kala shaqeynayaan dagaalkan qorshaha dhulka ah ee jasiiradan lagula wareegayo laakiin waxay leedahay haddii taa ay dhacdo wadankaas wuxuu ogaanayaa in uu adduunkan uu kala kulmi doono wax uusan horey u arkin laba arrimood oo muhiim ah ku sheego wadanka Imaaraadka Carabta wuxuu rabaa dagaalkan inuu sii socdo oo Iiraan la burburiyo awoodeeda militariga Sacuudigana wuxuu leeyahay nimankan qacdaha lagu sii hayo Iiraan sababtoo ah haddii nimankan ay guuleystaan Iiraan waxay noqonayaan awoodda bariga dhexe haddii ay noqdaanna dalalkan Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Khaliijka isku yiraahdo taama rabaan ayagu wali waxay aaminsan yihiin Iiraan waa shiico annagana sunni baanu nahay boqortooyooyinka aanu annaga leenahay bay Iiraan burburinaysaa maadaama sunni ay yihiin waana sheekada Israa'iil iyo Maraykanka ay ka dhaadhiciyaan Sacuudiga iyo Qatar iyo Khaliijka waxa la yiraahdaa Iiraan annaga idinka celinayna mooyee boqortooyooyinkan aad dhisateen iyo waxaanu idinka burburinaysaa arintaa darteed weeye waxa Maraykanka uu u joogo dalalkan Khaliijka marka Iiraan marka waxay leedahay annaga yeesan waxba naga baqin reer Arbeed waxa dhibka haya waa Israa'iil aanu hal meel ugu soo wada jeesano laakiin wala is aamini la yahay xalku meeshas buu maraya qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag daawadayaal halkaasi milyan ee askari ee Iiraan ay diyaarisay miyay ka guuleysan doonaan askarta Maraykanka uu soo diray ee Iiraan dhulka dagaal ku soo qaadi doona bal qaybaha kale ee barnaamijka daawadayaal aynu u galno saaxiibayaal dhinaca kale aynu fiirino Pakistan ayaa la hadashay Shiinaha gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa dhigiisa Shiinaha la hadlay waxaan ognahay in Pakistan ay wada hadalkan hadda socda ee Iiraan iyo Maraykanka u dhaxeeya ay qayb ka tahay laakiin Shiinaha waxa uu yiri annagu waxaan ognahay Betri buu yiri Shiinaha in Iiraan lagu soo xadgudbay annagu Iiraan waanu taageersanahay meel aanu Iiraan hadda uga dhaqaaqno ma jirto marka Shiinaha iyo Russia waa la ogyahay dhinaca sirdoonka iyo militariga iyo dhinaca waxay ka caawinayaan dhinaca fakarka marka Iiraan labada wadanba way sheegeen Pakistan iyo Shiinaha waxay yiraahdeen waa sax annaga waan taageersanahay wadanka Iiraan laakiin ma ogin bay Shiinuhu yiraahdeen dadaaladan hadda socda ee aad wadaan Pakistan iyo Masar haddii aad tihiin meesha ay idan la gali doonaan sababtoo ah Iiraan shuruudaheeda way cad yihiin Maraykankana shuruudihiisa way cad yihiin marka in xal la gaaro Shiinaha wuxuu arkaa inay adag tahay ilaa Maraykanka saldhigyadiisa uu ka saaro dalalkan bariga dhexe arintaas oo Maraykankana xaqiisa aysan suuragal ka ahayn marka
daawadayaal haddii Pakistan iyo Shiinuhu ay sii adkeeyaan taageerada ay siinayaan Iran, Ruushiyana diyaarado drone ah iyo hub uu soo dirayo, arrintaa ma noqon doontaa Iran in moral cusub ay hesho, dhiig cusub ay hesho, dagaalkana ay dabcan sii wado xilli Israel ciidankeeda aysan sii dagaalami karin baa la yiri muddo bil kale oo dheeraada. bal qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan saaxiibayaal nagula wadaaga. qaybaha kale ee barnaamijka aynu eegno shalay iyo darad baanu ka soo hadalnay saaxiibayaal. dalalkii khaliijka ee carabta ayaa u kala cararay una kala baxsaday wadanka Ukraine, oo Ukraine baa loo yeeranaya oo waxa la leeyahay Ukraine kaalay naga difaac diyaaradaha daroonka ee Iran ay soo dirayso. Mareykankiina waxa uu leeyahay Ukraine annagaaba idin baahan kaalay salgideeni difaac oo diyaaradahan naga celi. Ukraine maxaa sidaasi loogu raadinaya? waxa la leeyahay Ukraine adiga Russia la dagaalamay, adiga dabcan diyaaradihii Russia oo ka helay wadanka Iran la dagaalamay, waa taqaanaa sida loo dagaalamo, 3 sano dagaalamaysay, bal kaalay noo imo. maanta marka maxaa dhacay? maanta saaxiibayaal waxaa wada kulmay wasiirada difaaca ee Ukraine iyo sidoo kale wasiirka difaaca wadanka Saudi Arabia. waxaa laga wada hadlay waxa loo yaqaano defense cooperation, difaaca wada shaqeynta xagga difaaca ayaa laga wada hadlay. heshiis weynna waa la gaaray. dokumentiga lagu kala heshiiyey waxaa ku qoran in dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha wadanka Ukraine dhawaan ay dabcan kulamadoodu ay dhameysan doonaan. hadda way kulmeen. heshiiska horta waxaa saxiixay labada wasiir difaaca saxiixay, laakiin waxaa dhinaca kalena kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky. waxaa laga wada hadlay oo dhaxal sugaha iyo madaxweynuhu ay ka wada hadleen in khubaro iyo ciidamo Ukrainian ah si degdeg ah loo keeno wadanka Sacuudiga, isla markaana Sacuudiga ay ka difaacaan diyaaradaha daroonka ee Iran ay soo dirayso. sababtoo ah wadamadii hadda khaliijka ay carabta gaar ahaan boqortooyooyinkooda waxay ka baqayaan haddii dagaalkan uu sii dheeraado in Iran ay beegsan karto Mohammed bin Salman iyo boqortooyada, sidoo kale ay beegsan karto boqortooyooyinka kale. marka Sacuudiga iyo Mareykanka waxay leeyihiin dagaal 3 sanaad waxaad kula jirteen Russia. Ukraine wasiir lagama dilin, wasiir weyn ama wasiir lagama laynin, madaxweynihii wuu nool yahay. dabcan waa taqaanaan sida madaxda loo difaaco, bal dalalkan khaliijkana waxay rabaan marka in laga difaaco Mareykanka iyo sidoo kale in laga difaaco Iran, oo dabcan aysan Iran meesha aysan ku dilin dalalkan khaliijka. marka qaybta hoose nagula wadaag. ilaah ayaa wax badbaadiya, laakiin khaliijka dabcan way dadaalayaan. suuragalse ma kula tahay daawade in Ukraine ay wax badan ay kusoo kordhin doonto dalalkan khaliijka? ma kula tahay se in ay badbaadi karaan? bal qaybta hoose qodobkaasi aragtidiisa nagula wadaag. qaybaha kale ee barnaamijkeena aynu u galno. dowladda wadanka Iran ayaa maanta ku jimcaysatay Israel oo dhowr jiho ay ka weerartay. madaafiicda Iran ayaa ku hoobanayay bartilmaameedyadii loogu talagalay, waxaana Israel ay qiranaysaa in dad 10 qof ku dhow ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo u cararayay goobaha bambaanooyinka iyo duqeymaha laga galo ee dabcan dhulka hoostii ku yaala. iyagoo meelaha u kala cararaya ayay sheegeen in 4 qof ay hal meel ku dhaawacmeen, halka dabcan tiro kalena ay ku dhaawacmeen meelaha qaar. Israel waxay dhisatay guryo dhulka hoostiisa ay ka samaysatay oo ay ugu tala gashay sidan oo kale markii weeraro ay dhacaan in dadkeedu ay ku xaroodaan iyo sidoo kale madaxda maamulkeeda. laakiin hadda maadaama nidaamkii difaaca hawada ee maamulka Israel uu fashilmay, gabaabsina uu yahay una difaaci la yahay xarumihii nuclearka iyo sifaynta gaaska iyo saliidda ee maamulkan Israel, waxaa dabcan isa soo taraya khasaaraha maalinlaha ah ee maamulkan Israel ku habsanaya. toddobaadkii la soo dhaafay wax 2,000 gaaraya ayaa ku dhaawacmay, sidoo kalena khasaare dhimasho ayaa jira. laakiin tan iyo markii dagaalkan uu bilowday, maamulkan Israel waxay qarinayaan tirada guud ee dadka kaga geeriyooday oo kaliya maalin walba waxay sheegaan khasaare dhaawacyo ah in uu soo gaaray. sidoo kale waxa ay maamulkan Israel ay xaqiijiyeen maanta in askar ay kaga dhaawacmeen dagaalo qaraar oo ka dhacay koonfurta wadanka Lubnaan. marka la isku daro dagaalkan qaraar ee xisbiga iyo Israel ay isku arkeen ee koonfurta wadanka Lubnaan ka dhacay iyo duqeymihii maanta Iran ay la beegsatay magaalooyin ku yaala waqooyiga Israel, koonfurteeda, bartamaheeda ilaa iyo sidoo kale magaalada Qudus, ayaa waxaa la soo waramayaa in dabcan dad 100 qof kor u dhaafaya in maanta oo kaliya ay ka dhaawacmeen. dhimashana way jirtaa, laakiin Israel way qarinaysaa dhimashada xaggaasi eena ka dhashay. bal qaybta hoose nagula wadaag in tan iyo dagaalka markii uu bilowday Israel ay qarinayso inta ka dhimatay, laakiin ay leedahay dad 5,000 gaaraya ayaa naga dhaawacmay.
dadka qaarna waxay leeyihiin 10 ilaa 11 kun buu dhaawacyada marayaan dhimashaduna dabcan intaa bay kusii dhowdahay laakiin isku daygan qarinta ah ayaa dabcan keenaysa in dadka shaki badan ay muujiyaan magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ee Israel labadii maalmood ee lasoo dhaafay laga burburiyay waxa ugu weyn magaalada hubka nuclearkeeda uu yaallo shaybaaradeeda ay yaalaan isla markaana saynisyahannadeedu ay degan yihiin iyo magaalada sifaynta gaaska ugu weyn ee Israel ku taala iyo xarumaheedii korontada iyo dabcan xarumaheedii keedka shidaalka intaas oo Iran ay cagta marisay bal qaybta hoose nagula wadaag ujeedka Israel ay ku leedahay inay qariso dadka ka geeriyooday keliyana ay sheegayso dhaawacyada dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa baqay oo laba tallaabo dib ayuu u dhigay oo waxa uu ku dhawaaqay maanta in muddo 10 maalmood ah uu dib u dhigay weeraro la qorsheynayay in lagu qaado kaabayaasha tamarta ee wadanka Iran isagoo sheegay in wadahadal nabadeed uu hadda u dhaxeeyo dhinacan iyo Iran iyo sidoo kale Mareykanka Trump ayaa sheegay in go'aankan uu dhaqan geli doono 6 bisha Abriil si fursad loo siiyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadan hadda daba dheeraatay ee Israel Mareykanka iyo Iran u dhaxeeya warbaahinta Al Jazeera ayaa ku waramaysa in wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Pakistan Isaaq Dar uu xaqiijiyay in dalkiisa uu door dhexdhexaadin ah uu ka ciyaarayo fariimaha loo kala dirayo Washington iyo Tehran sidoo kalena dalalka Turkiga iyo Masar ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xalinayo xabad joojintan dhinaca kale ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran Ali Jafrain ayaa sheegay in ugu yaraan 1937 qof ay ku dhinteen weeraradii Iran iyo Mareykanka tan iyo intii dagaalka uu dabcan dhacay halka Israelna tirada dhimashada ay qarinayso laakiin la leeyahay iyana dabcan 2 ilaa 3 kun ilaa dabcan 4 kun bay gaarayaan haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalin dhaweed waxa uu u soo diray wadanka Iran oo Pakistan loo soo mariyay heshiis ama shuruudo 15 qodob ka kooban oo ay ugu badan yihiin hubka nuclearka Iran inay burburiso waxa ay hadda samaysayna Mareykanka ay ku wareejiso marinkan Hormuz ciidamada caalamiga la geeyo waxyaalahaas baa ku qornaa Iran warqadii way jexjexday wayna gubtay ayana waxa ay miiska soo saartay 5 qodob oo ay ugu horeyso in Mareykanka saldhigyadiisa ku yaala bariga dhexe la xiro in dabcan Iran magdhow 100 bilyan ah la siiyo in dabcan Mareykanka uu joojiyo iyo Israel duqeymaha ay ku wadaan kooxaha gobolka jooga ee Iran ku xiran shuruudahaas oo loo malaynayo Iran in ay adkeynayso laakiin Mareykanka uusan fulinaynin suuragal ma kula tahay in Iran ay fulinayso shuruudaasi oo ay markii horeba dagaalka ku gashay ma kula tahay Mareykanka in saldhigyadiisa uu xiri doono bariga dhexe ku yaala ma kula tahay in Mareykanka magdhow 100 bilyan ah uu siinayo Iran bal qaybta hoose qodobadaasi dhan aragtidaada nagula wadaag caawa barnaamijkan halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa haddii aad doonaysid qodobo kuwan la mid ah iyo barnaamijyo kale fadlan subscribe saaro qaybta hoosena aragtidaada nagula wadaag waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan